dowladda Israa'iil ayaa qaaday 3 tallaabo oo dhulgariir ku noqonaya Soomaaliya iyadoo soo afjaraysa dhaqdhaqaaqyada ka dhanka ah go'aankii geesinimada lahaa ee ay ku aqoonsatay Jamhuuriyadda Somaliland. Tallaabooyinkan ayaa lagu difaacayaa weerar kasta oo ka iman kara kuwa ka soo horjeeda jiritaanka Somaliland. Haddaba muxuu yahay go'aanka la odorosayo inuu ka soo bixi doono kulanka Trump iyo Netanyahu? maxay yihiin tallaabooyinka ay Israa'iil qaaday ee ku difaacayso weerar kasta oo ka iman kara cadawga Somaliland? Warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa qodobadaasi. Markii ay dowladda Israa'iil go'aan geesinimo leh ku aqoonsatay Jamhuuriyadda Somaliland oo in ka badan 34 sannadood raadinaysay inay hesho dawlado u garaaba go'aanka shacabka, waxa iska soo daba dhacaya duulaamo iyo weeraro qaawan oo gacan ka hadal ah kuwaasi oo Somaliland loo qorsheynayo wadamada cadawgeeda ah oo istaageersanaya ayaana waxa ay wadaan qorshe kama dambaysa oo ay ku doonayaan inay duulaan gacan ka hadal ugu soo qaadaan soodimaha Somaliland. balse Somaliland iyo xulufadeeduba waxay ka warqabaan dhagar kasta oo ay maleegayaan kuwa ka soo horjeeda jiritaankeeda, iyadoo dowladda Israa'iil oo go'aan geesinimo leh ku aqoonsatay dhawaan Jamhuuriyadda Somaliland ay qaaday saacadihii ugu dambeeyay 3 tallaabo oo ay Somaliland ku garab siinayso weerar kasta oo kaga iman kara cadawgeeda. tallaabada koobaad ee ay qaadayna waa in la bilaabay hawlgallo hawada Somaliland lagaga ilaalinayo cadawga Somaliland inuu adeegsado iyo inuu waxyeelooyin uga geysan karo shacabka Somaliland. gacan ku haynta nabadgelyada hawada Somaliland oo ah mid muhiim ah ayaa dowladda Israa'iil ay si rasmi ah ula wareegtay, iyadoo gaarka laga hayo dhaqdhaqaaq kasta oo ay ka sameynayaan ama si ku soo gali karaan hawada Somaliland cadawgeeda. tanina waa tallaabo iyo adeeg in badan ay u baahnayd Somaliland in loo qabto kaasi oo niyad jab iyo guuldarro ku ah cadawga Somaliland inay haatan si rasmi ah gacanta ugu dhigtay, iyadoo awood u leh dowladda Israa'iil in ay diyaaradaheedu gaaf wareegaan hawada Somaliland. qaar ka mid ah diyaaradaha qumaatiga u kaca ayaana lagu arkay hawada Somaliland, gaar ahaan eriyada magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. tallaabada labaad ee Israa'iil qaaday kuna taageerayso Somaliland iyadoo ka difaacaysa weerar kasta oo kaga iman kara cadawgeeda ayaa ah inay ku maalgelisay dhaqaale dhan 1 trilyan oo dollarka Mareykanka ah, kaasi oo kaabayaasha dhaqaalaha, dhismaha ciidanka iyo sidoo kale amniga iyo nabadgelyada wax lagaga qabanayo. dhaqaalaha kan iyo maalgashigan haddii sida loogu talagalay uu suurto galo guuleystona hadafka ay Somaliland iyo Israa'iil wada leeyihiin, waxa uu dhaafinayaa wadamada la deriska ah oo dhan Somaliland, waxaana ay noqonaysaa mid ka mid ah wadamada ugu horeeya ee Geeska Afrika ku yaala. tallaabada saddexaad ee Israa'iil qaaday ayaa ah in ra'iisul wasaare Netanyahu uu si toos ah oo kafool ula kulmayo madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump. caawa 11 habeenimo ayaana kulankaasi uu ka dhici doonaa waddanka Mareykanka, iyadoo la filayo labadan hogaamiye inay isla jeexi doonaan qorshaha kama dambaysta ah ee lagu soo afjarayo kuwa ka soo horjeeda madaxbannaanida iyo jiritaanka Somaliland. sidoo kalena madaxweyne Trump ayaa go'aamin doona isaguna maalmaha fooda inagu soo haya inuu ku dhawaaqo aqoonsiga Jamhuuriyadda Somaliland. dad badan oo arrintaasi faraqaynaya ayaa dhinaca ay rabaan ka eegaya, balse Mareykanku marnaba kama hor yimaado go'aamada ay Israa'iil qaadato. inta ugu badanna si cad ayuu u taageeraa oo aan gabasho lahayn. go'aanka laga sugayo Trump iyo Netanyahu ayaana waxa la odorosayaa inuu noqon doono mid ka farxiya Jamhuuriyadda Somaliland, sidoo kalena lagu qorsheeyo tallaabooyinka madambaysa oo lagu soo afjarayo kuwa ka soo horjeeda jiritaankeeda, iyadoo labada wadan ee Mareykanka iyo Israa'iil ba ay eeganayaan barta istiraatiijiga ah ee ay Somaliland ku taalo iyo danaha ay ka leeyihiin Geeska Afrika. labada wadanba halista ay u arkayaan inay ku leeyihiin Geeska Afrika ayaa soo raacaysa arrimaha dhiirigelinaya Shiinaha iyo Turkiga oo si weyn haatan Jamhuuriyadda Somaliland ula dagaalamaya, waxaana dunida oo dhami si weyn indhaha ugu haysa kulankooda qodobada ka soo bixi doona, kuwaasi oo la odorosayo inay noqdaan kuwo ka nixiya cadawga Somaliland.